bartamihii bishii tagtay ee May dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in la xakameeyo hubka faraha badan ee lagu dhac qaato gudaha caasimadda si looga hortago dilalka iyo falalka kale ee amniga khatarta ku ah. Golaha wasiirada ayaa go'aamiyay in mas'uul kasta oo ka tirsan hay'adaha dawliga uu qaato 4 askari oo ilaalo ah oo wadata qoryaha fudud oo aan la arki karin cid wadata intaasi hubka badan iyo askar. dowladda ayaa ku dhawaaqday howlgal lagu magacaabay xasilinta caasimadda Muqdisho kaasi oo ah in lagu xakameeyo hubka dhex egaagaya gudaha caasimadda. dowladda federaalka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ayaa samaysay ciidamo isku dhaf ah oo hay'adaha ammaanka oo dhan isugu jira kuwaasi oo bilaabay howlgalka xasilinta caasimadda. Haddaba muxuu yahay hadafka dowladdu ay ka leedahay howlgalka xasilinta caasimadda? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Cabdinaasir Saciid Muuse. hadafka dowladda ama priority koowaad dowladda annaga waxana loo dhaariyay aan kutub u marnay sharciyana anaga aan ku joogno sharciyada aan u haysano waxa weeye priority koowaad dowladda nabad iyo nolol in amniga dalka gacanta lagu dhigo. arintaas ayaa noo ah priority koowaad. waa waxa habeen iyo maalin madaxweyne ra'iisul wasaare wasiiro ay ka shaqeynayaan taliyayaal ciidan ay ka shaqeynayaan har iyo habeen waxaan u taaganaa waxa weeye inaan hamiga shacabka Soomaaliyeed aan xaqiijino. intaa kadib waxaa soo baxday dad badan oo qaba aragtiya in howlgalka xasilinta caasimadda uu yahay mid lagu degdegay oo aanan lahayn istiraatiijiyad waqtigana aan suurtagal ahayn in hubka dhigis lagu sameeyo dadka hubka ku dhaxaysta caasimadda waxaana ay ku doodayaan qaarkood in marka hore ammaankooda la sugo ama la damaanad qaado. Cabdullaahi Abuukar Samatar oo ka tirsan mas'uuliyiinta macadka daraasaadka amniga ayaa aaminsan aragti ah in howlgalka xasilinta caasimadda dowladdu ay ku degdegtay. maya waa arin oo somehow xogaa degdeg ka muuqda waa haddana mar walba waxaa amniga xukuma siyaasadda mar walba waxaa amniga waxaa xukuma siyaasadda cidda u madaxda ah iyo qorshooyinka iyo shaxda iyada u taala in lagu dhaliilo inaan lagu dhaliilin waa arin kale laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa wax noo muuqda ee ah 100 maalmood iyo wadan dhowr 20 sano taqriiban 30 sano ku dhawaad crisis ku soo jiray dhammaan A to Z hubaysan guri walba ama dukaan walba ama sandaqad walba uu qoryaalo iyo 100 maalmood hub qaadisan bilaaba waa something aan xogaa isqaadanayn xataa kala shakiga iyo dareenka hadda jiro waa baabi'i lahaa hada waxa jira marka in shakiyo laga muujinayo sometimes waxaana keenayo iyadoo aanan la dhihin degmadani marka la rabo in howlgal laga sameeyo yaa xaq u leh inuu hubaysnaado. howlgalka xasilinta caasimadda maxaa laga dhaxlay? waa dareemi karnaa maanta wax laga dhaxlay adiga dareemi kara shacabka Soomaaliyeed oo dhan baa dareemi kara wax laga dhaxlay waxa waa amni weey in dadku amni ay ku soomaan ku afuraan kaliya intaan ogama harin ee wali way soconaya waxaan rabnaa inaan xaqiijino qof walba Soomaaliya in uu ku ganacsado meel amni ah wax ku barto meel amni ah uu seexdo meel amni ah dadkeena waxa ka maqan maanta ee baahi u qabaan waxa weeye waa amni weey. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si weyn ayaa looga dareemay howlgalka xasilinta caasimadda ay dowladdu ku dhawaaqday waxaana wadooyinka magaalada lagu arkayaa baabuur gaashaaman oo ciidamada ay wataan kuwaasi oo hubka ka aruurinaya dadka sida sharci darrada ah u wata hubka. shacabka Muqdisho ku nool ayaa qaba aragti ah in howlgalka xasilinta caasimadda uu wax badan ka bedelay dhanka ammaanka. wallahi haddaan shacabkana Muqdisho aad iyo aad ay soo dhaweynayna aad iyo aad ayaan u arkayna waayo dhib badan ayaa ku qabna wadooyinka aad arkaysid waayo hubkii faraha badan iska socon jiray waayo baabuurta iska carari jireen waayo waxa waaye hub weyn baabuur saaray adoo iska arkayso oo adigana ka dambayso laami ku shaqeeysid waxa arkay adoo lagu taagay qor weyn marka wallahi aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayna waan ku mahadsanyahay 100% Muqdisho waa halka uu fadhigeedu yahay dowladda dhexe ee federaalka waxaana ku yaala xarumo ganacsi waxaana jooga shakhsiyaad xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii hore iyo dowladda hadda jirta oo wata ilaalo gaar ah saameyn intee laag ayay ku yeelan kartaa howlgalka xasilinta caasimadda amirmahaasi. ma ahan kaliya in la yiraahdo ka qaad kaliya ma aha for example businessman ko kaleeto ama ninka ganacsadaha ah ee hanti meeshan u taalo labada qoriye ugu dhex jirtay oo hantida ku ilaashana waa lacag markaad tiraahdo dawlad ma tahay maya waxa aqoonsi ma haysataa maya qoriga keen markii la yiraahdo waxa imaanaysa inuu ku yiraahdo qorigan waa lacag walba in la yiraahdo ganacsatada iyo meheradahooda iyo all these anaga amniga sugayna mas'uuliyad cadna ay muujiso dawladda oo xitaa heer qoraal ah
oo mas'uuliyiinta yiraahdaan innaga ka mas'uula wixii hantiyo meeshan ka halaabo qorigaagana waa lagu lacagaynaa waxay u ekaanaysaa marka in oo marka si constructive ah loo fahmo haddii kale qoriga keen in tareedii la qaato qoriga aakeesh lagu soo guro calaa qori $2,000 ku dhawaad waa hanti boob ay u ekaanaysaa howlgalka xasilinta caasimadda Muqdisho ma waxa uu ku kooban yahay Muqdisho mise waxaa jirta goobo kale oo dawladdu ay qorshaysay in la gaarsiiyo hadda waxaan taaganahay Muqdisho laakiin qorshuhu waa qorshe dhow iyo qorshe fog qorshaha fog waxa ku jira in dalkoo dhan xuduudaha Soomaaliya oo dhan aan nabadeeno oo hooyo walba Soomaaliya kaas Aseer Laas Kamboni ilaa meesha ugu dambaysa inaan annaga waxa weeye amnigeeda aan sugno Cabdi Casiis Ibrahim Axmed okay TV Universal magaalada Muqdisho